wiilkan iyo gabadhan isqabaan markii albaabka intuu soo jukay guriga aabihiis galii ku nool oo albaabkii laga furi waayey oo furo una haysta gurigu ku noolaa jiri waaye oo furaha isaga soo furay yaa oo gudaha usoo galeen asii xaaskiisii maxay arkeen waxay arkeen aabihiis iyo gabadho uu qabo hooyadeed yaa subxaan allah oo keligood ku ah oo weliba qaawan una asturneen subxaan allah bal qisaanka aleen wada dhegeysanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة ما أنت أيضا وضعنا وحيتها متغنى يا تتكاركوت مدقوان مياه مثلا موين هذا مياه أخلي ما يشان مياه سبحان الله قصة ثانية كده هذي رير كان ورير إسقابو وهو يو أبا يو لبا عيال لكن أباهان هو يدا قد بالله هي كتاين تانين كذا ورمان تدن اسكدو بريق اسمه لما هذا ناقودود كيس ما دماado fiqsigiis iyo fasahaadkiisa ma dhamaado meelaha naagaha inuu daba socdo marba naag jiito ma ka dhamaato way ku daashay wixii tir marka damniyahow waxaan kuu sheegay walaalo ilmahana dhashay aniga kuma diiday ilmahaaga safarkaas shaqadu aadid safarkaaga iskaga aad aniga madaxiga si halka marad imaanaysidna wadankane yacni guriga ilmahaaga dhinac ka joog waa guri weyn qolkaas iyo fadhigaas isku xiran aan ku siiyey joog dadka ilmaha aan u jirno inaan isqabno camal laakiin ugu inaan tii rabbi aan ku kala tagnay ilmaha yaryaryihiin maskaxdooda inaan dhaawacin waa ogolaaday waa la kala tagay markii la kala tagay ilmihii markuu yimaadaba sanadka hal mar uu joogaya 15 maalmood mase 20 maalmood qol ifadhiga ogolaataa sidoo saas u ahaay hooyadii ayaa tiirab u timid ilmihiina waa weynaadeen waxay noqdeen ilmo qaangaaro oo dad waaweyn oo adduunkooda raacdo markay hooyadii dhimatay alla raxma raaximiin ayuu aabihii wuxuu go-aan ku gaaray inuu wadanka isaga soo guuro wadankii uu soo degay ilmihiisii u yimid gabadhii ninaa soo doontay waa la siiyey wiilkiina gabaroo jeclaaday in loo doono gabadhaa laga hormariyey marka gabadhii waa loo doonay wiilkan oo waa lasoo siiyey laakiin weli lama aroosin gabadhaa la hormariyey oo guurkeeda la sameeyey maalintii arooskoodii ahaa reerkii ay isku yimideen gabadhaan wiilkan gabadhi reerkii oo gabadhi ka guursan lahaa way yimideen ileen waxay noqdeen xidid oo gabadhoodii baa wiilkaanii taqatubtay oo faraanti u geliyey marka meelkii reerku iskugu yimid ayuu wuxuu dareemay asaga wiilkan aabihiis oo asaga wiilkan sodohdiisa ila fiican ku fiirinayaan sidii in la jecel oo kale isku fiirinayaan asoo shaki gala wiilkii haddana iska cudu bilaystay waa lagu kala tagay arooska gabadhi waa la galbiyey asagii ayaa aabihiis wuxuu galay wuxuu rabaa iyow inuu ileen halkan guryo isku wada ku yihiin shirkad ku yihiin wiilkaaniitii in iyow uu gabagabeeyo wiilkan rabaa wuxuu yiri anaa ku yani garabkaaga galaay anaa waxay kaa dhiman ku siinaay anaa ku caawinaay abo iyo dheer arooskaaga samayso wiilkan gurigiisa wixiisii wuxuu isiri aabaha yaa ka fiican aaba fiican ba waayo waa gabagabeeyey asoogaa inaan gurigan wuxuu u firaaqaysanayaa adduun kale inuu ku qabsado wiilkaana ma oga markii la guuriyey gurigoodii ay maxay ahayd toole reerkan aadeen ayuu aabihiisii mar walba usoo wac taleefonka kala sheekaystaa uma yimaado taleefonkay ka sheekaystaan marka dambe ayuu wuxuu is yiri aabahaa balwac maalin maalmaha ka mid ah markuu aabihiis waca taleefonku ka qabo waaye walaashiisi waa wixii ani xataa waa iga qabo waaye taleefonkii wacay maanta dambe haddana wacay taleefonku ka qabo waaye markaas wuxuu yiri aabahay 2 maalin taleefon igama qabanin bal maxaa qaldan wuxuu sheegay xaaskiisii waxay tiri nakici bal aan soo fiirin adoo kaligiisa guriga degan yahay wax walbaa ku dhici kare way soo raaceen guriga la yimid guriga markii la yimid albaabkii kambalka soo yeeriyeen wax furaaya male way yeeriyaan wax furaaya male marka wax fura la waayey ilmiinkan guriga la deganaa jiray furooyinka mid kamid ah wata albaabka isku soo furay waxaana socotay xaaskiisii albaabka markuu soo galay الباب كسوفري
ay gudaha usoo galeen oo aabiis qolka jiifka intuu ka raadiyeen isagii xaaskiisa asoo hadlin oo rabo inuu aabo yiraahdo wuxuu la kulmay subxaana allah oo niis qabteen aabiis oo meeshaan taagan oo fiiro qaawan iyo sodohdiis oo dharka jiifka ah xiran dharka jiifka waaya madax qaawan ayuu u yimid subxaana allah indhaha labada taagay gabadhii indhihii tagto waa hooyadeed waa sodogeed wiilkan waa sodohdiis waa aabiis maxaa sameeyaa waay indhihii taageen wiilkii u qeydi marka aabo maxaa kaa qaldan maxaa waxaa samaynaysid maxay taa waxaan ku kacday maxaa waaye waxaan yiri sodohdii waxay sheegtay ka sugisay ya ceeb dartiisii ayaa dharkeeda inta cabaayadeeda ku orday ay albaabka ord ugu baxday gabadheedaa laakiin daba gashay oo daba orday asaga aabiisa u heri wuxuu ku yiri hooyaday ileen waxay la aamusneed ileen waxaad ahayd aabo ilaahay xaalkiisa ogeh waxaad ahayd nin saqajaan ah waxaad ahayd nin laalaab haddaad yaraantaada laalaabka ahayd xataa haddaad weynaata tooba ma dhehaysid miyaa inaad tooba tiraadaan ku malaynaya aabo waxaan ku malaynaya nin maasha allah tabaaraka allah aabayaalka wax dheer yahay laakiin ma aadan naqan laablaabkaaga luuqluuqaaga hooyaday xataa weligeed kuma sheegin waxa ku sheegay waa deriska idan deriska waa ilaalaan lagu dirsan waxa ku sheegay waa saaxiibadaa ما فهمت لكن ما أمن جرم كهذا وكهذا أبو بجملي فإذا ملي رير كيجا ددمسي رير كيجا باب إسي وجيان كلها تغيرك ما بحايا وصورت ويد كبرك قرو يمد قرو مركو يمد الباب كيا وحكوا فرعون جرا حاسس لالاتي وسي قد بقولك يوتجي قولك هايدي يكبر يسحب فليان كبر يوك عندك ساقبته حجري صاب حجري كل كان معنا ضمن هايدا أكتر ميمانيس صفتو هويدا وهوي سقجان هويو سقجان يا قيانا بدون أباها يا قيانتي هوي أباها هويدا أباها قيانتا ولا صفة لنا ميا مل جوز جورجان تبع حتى ميمانيس سبحان الله أبيه كمان عندل وجوجا ومغلي وصباحي حير محا قيانا محي يبو قيانتي محي سميس الله فريستي حير حكو قيانتي أبيه كو قيانتي أبهي إيكو قيانت كورجان فرني ساسام كوجان سبحان الله هذا وجه ماشي كتفنت إن كان الباب كوكسي بحاي كبدو وحي تري عيبته هذا سي أسطور لها تحبي على جحي العمام في العين إن فديحيس ورير كين نساس كون عليسيس كو مدو بس عضو المدحيق سي تربح وكتكي لكن مدلو جو كبدو أورا وكصباح reerkii ku soo noqday wuxuu yiri gabadhii hal isiyo yiri gabadhii naagteedii xaaskii waa u baahan gurigan kula laabana waa loo diiday adagi oo diiday salaantine emrigaas idoo jirtaa la furay idana ya dad saqajaanimaas eegan waa joogaan ma joogaan wal ahay adduunka wax saqajaan waa joogaale shaydaankan xoog u leeyahay wadan laga cudu bilaysan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walba إذا نفسك كذا ده يحكون قناش هده يحقص قصناش ده يحقص جرت ما ناس قصقصت حير رهان حدد كيهينو استغفر الله العظيم على كل شيء دم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إله الشيطان كان لها أنا كنت إسمعنا يا حدد ده تك حدد سكو الدب وصلات الله أصلا الشيطان كان قضي بل حدد تقصوا الله ولا سبحان الله مو ميراث كوريكت إن شيطان فيري أنا ما جري استغفر الله العظيم إلهنا أستر القصة أنا ما أنت سوكو إكتهاي يا القصة لمت إن شاء الله هنسكو إيماني نادو إلهي رازو ضدك نوع عصب نو يمت علينا سود هذا قعمو فرن قرقي نواي وولاشين ومسكين تماشي أسكفر دزو قنير صعد كأهد قفل بحواي بصوت بليه أنا بقول يا صوت كان أسكاه الحمد لله قفل في إله فوق لي يسوق لي وياه قفنا فضيض وقالوا ده شيء قف دكنان وقالوا ده شيء قف بوبوه وقالوا ده شيء قف بسوق له ده شيء لكن الحمد لله نعمة ربي وقفكم ركو إلهي دجي وقبو بناء وده شيء وقنير صعد وده شيء الحمد لله الحمد لله مركا الحمد لله هاي ولا هاي أنت إلى جرتو إلى جوكتي تبقى مع سنتين
intaan soo gaarin idinka ay soo gaarsiiseen ilaahay ka sokow. maxay ahayd ole dadka cusub oo noo imaanayana waxaan leenahay gacan furan kusoo dhawaaw. Welcome insha allah. kolley waxaan umalaynaa jidka daa socda xataa indhaheyga dadaa soo saari doona. Soomaali sakuuridaan xamsanta. marka insha allah khayr badan aan idin dhaafay. caafimaad bash barwaaqo. laagta iyo sheerka iyo subscribe-ka naga iloobina. sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.